بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد ولا ليال وسلامتهين دمانتين ملك ساتشوكتان سلام كدب waxaan jeclahay inaan idhaahdo kelmad yar oo ku saabsan qur-aanka oo aan ugu talagalay naftayda ugu horeyn kadibna insha allahu tacaala ciddii kale oo allah subxaana wa tacaala ku anfaco ilahina waxaan ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka noo saaro kana dhigo mid wejigiisa isaga dartii loola jeedo intaa kadib walaalayaal adduunkan oo madow oo dulmi iyo fasahaad iyo cadaalad darro iyo jawr iyo balaayo dhan akhlaaq xumo fasahaad wax walba ka buuxaan ayaa allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa keenay markaasuu islaaxiyey markaasuu wuxuu ka dhigay nuur walaalayaal adduunka dhan baa iftiimay adduunka dhan waxaa u bariyay waa cusub adduunka dhan baa isbedelay walaalayaal waxaa isbedelay quluubta iyo nufuusta dadka isbedelay waxaa isbedelay cuquushoodii iyo afkaartoodii buu qur-aanku bedelay wuxuu bedelay afcaashoodii iyo aqwaashoodii walaalayaal kitaabka waa kitaab weyn waa kitaab khayr iyo barwaaqo iyo hanuun iyo barako iyo wax walba xambaarsan waa kitaab qofkii qabsada oo raaca oo ku dhaqma allah subxaanahu wa tacaala u geynayo ilaahay buu ku geynayaa jannada ilaahay buu ku gelinayaa waxaad ku helaysaa raalli ahaanshaha ilaahay baad ku helaysaa allah subxaanahu wa tacaala qofkii raaca oo ku dhaqma oo xifdiya oo akhriya oo barta oo bara wuxuu ku sheegay nolol buu ku sheegay ruux buu ku sheegay allah subxaanahu wa tacaala وكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ساس درتد بان وحان كسينا روح يا نولل يا رحمت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نور بان كدقنا والنور ولا ليا وإفيا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا قف كان سيانو قف كان دونو وعدوما هي كمذا أيان كهنونينا أو سينا وكل رغمة قرآنك ولا ليال حكو هنونينا وكتوسيا وضد التوسن وكتوسيا أخلاق في عن وكتوسيا الله كعبسيا وكتوسيا عماش ونكسن الله سبحانه وتعالى محيري إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ولا ليال هضهر بتتبركوا إن الله سبحانه وتعالى عمرك يا عقلك يا عافماتك يا عبادته يا عرورته يا أهلك يا وحولبا يا مالك وكبرك يا قرآنك الله سبحانه وتعالى كدقن وصاحبك دقو ولا نولو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وكتاب بركيسن barakaysan wala leeyahay cid kasto taabata iyo wax kasta oo taabto uu barakoobaya baraka meel kasta ka raadin barakadu waa maxay waa wax in Allah subhanahu wa ta'ala wax walba ku siyaadiyo oo ku barakeeyo weeyaan waa ziyada cimriga lagu siyaadinaya aqliga lagu siyaadinaya xiftiga lagu siyaadin waqtiga lagu wax walba Allah subhanahu wa ta'ala ku barakeynaya hadaa rabtid caafimaad iyo raxmad iyo deganaasho قرآنك الله سبحانه وتعالى أخري وكديران كفوغان الله محويل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا وشفاء يا رحمة للمؤمنين قفك مؤمنك مركز أخريد أفرسو maalintaad akhriin ma aragtay waad walwalaysaa adiga dhan waxbaad dareemaysaa culays baad dareemaysaa laakiin markaad akhriid masaajidka markaad la fadhiisatid markaad ku tababurtid aayadihiisa qalbigaagu isbedelaya walaalayaal isbedelaya wajilat quluubuhum allah subxaanahu wa tacaala marka lagu akhriyo aayadaha ilaahay haddaad rabtid sharaf iyo ciz in allah subxaanahu wa tacaala ku siiyo kitaabka allah subxaanahu fa calayka bilqur'aan allah muxuu yidhi لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون كتاب حنين سودتشيني أي كتبت شرفتيني عزيز وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون هكم من نغني نكوي الله سبحانه وتعالى ويلي نبي سيسو كسو قريني
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومدى إذا قرآنك وكدرات وكفقات قرآنك سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآنك سولا ليال وإننا كدران وإن علاقاتك حاجات شنو وحين كوتشنا سند عصوب بينو بلوني وبشي كواد إنه كوتشرنو أولوياتك يا أهدافت يا بايورتيسك يا جولسك himilooyinka aynu degsanayno walaalayaal oo qof walba rabo inuu sanadkan gaaro oo xaqiijiyo ilaahay hana waafajiye aynu ka dhigno walaalayaal kuwa ugu horeeya qur-aanka aynu ka dhigno ka ugu horeeya number 1 aan ka dhigno qur-aanka maxaa dhacay walaalayaal haddaad qur-aanka qabsatid oo ku dhaqantid adduunkana wax fiican buu kugu hanuuninayaa aakhirana walaalayaal janno ku geynaya النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه أحمد ولا بأس به في سنده محويل القرآن شافع مشفع قيامها مركلة القرآن كوكو دودية يا وكو دودية يسقى الله سبحانه وتعالى لها الله وقرن يالله وكون غنية وماحل مصدق وحويه قرآنكو والدودة والدودة يا صاحب كيس وانا الله رميسانة يا الله سبحانه وتعالى والرميسانة يجادل لصاحبه فمن جعله أمامه قفك راعى قرآنك وهرك دكته وحقية كدقه قائد كدكته قاده إلى الجنة جنة قيني يسوء وضو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قرآنك وودد الله سبحانه وتعالى توسن اعراع ومن جعله خلفه قفك قداشة فنبذوه وراء ظهورهم كذلك قفك كتورة وإلاوة وأن كريل وأن كدقمن وسكا إغنور قرايا وح قيمة درن أو كلا قيمة بتو فيسبوك وكلا قيمة بتو ينعنع إنو ماركتي ما أنت وقت ما لا يعني كله ميو هدوك على قيمة بتو ولا ليل حويني قاده إلى النار ونعوذ بالله من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى من كم قال لي إن القرآن كدرتي أنت ناركو قلب القرآن كنار نجيو قرآن كإنه ناركو جينه وحوي وإناد حارنتي سوح حارنتي نمين التي مادي وحو حلالية إناد ماركتي أوامرتي إناد كتكتي وهذا قاضن وحو النهيين هذا كل حد بالتي إن هذا اسكو حكومين إن هذا كدجنين وح سك هو جامني هو جان إن هذا كدجنين القرآن حديث قال نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع بهذا القرآن إن الله يرفع بهذا القرآن أما بهذا الكتاب في رواية أخرى أقواما تتبع الله سبحانه وتعالى كرء قاضية بس كل رقمة أو برته أو عمل فلا أو سكو حكمة الله سبحانه وتعالى كرب قاضية دنيا آخرة خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث كيبان عندما يسترنو ويضع به آخرين كوا كلام هوس بيكون قنيا وكوا أمامرتسا كتجي نواهيث سنة الليمي يا يقال لصاحب القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام سيد النبي يقول markay jannada uu tago jannada mu'miniintu markay jannada galaan maxaa lagu dhahayaa qofka saaxiib quraanka maxaa lagu dhahayaa waxa la dhahayaa iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha akhri oo full darajada jannada oo akhri oo tartiilaysa adduunka markaa joogtay u tartiilin jirtay tartiilku waa in محل هذا قراءة دقن قفك أو تحقيق إنه أخريه واي تحقيق إنه أخريه واي أو أن دقدق هين حضر أوسو كوشرين وحدقي سا بوسكا وماشي كاغدا ما تصدنك قفك صدنك تشسبا قفك قرانك كهيا كرك كهيا أو كسعودة شنو درجات كذا حجيبو قينية ميل سرو قينية ولا ليال أوسرس أنا إذا كسريني
walaalayaal aynu ku mashquulo marka akhrintiisa iyo barashadiisa iyo baristiisa qofka yaqaana awlawiyaadkeena aynu ka dhigno sanadkan waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa ugu dambayntii inuu naga dhigo ahlu qur'aan ha noqonin qof qur'aanka qof kale u daba fadhiya ha u daba fadhiisanin qof kale baro lagaama xigo fulaan suu u bartay iyo waqtigu geliye geli waxaan aqaanaa dad walaalayaal iyagoo 50 jira 60 jira intay bilaabeen bartay bal xataa qiraa'aadka yaqaana iska daa hal qiro iska daa hal riwaayo qiraa'aadka yaqaana oo bartay qisas badan buu dadka ahlu qur'aanka walaalayaal qur'aanka saaxiibka ah la ah asxaab alqur'aan qisas badan baa laga wariyaa aad u badan kuwa iyagoo dhintay qubuurtoodu nuur iyo cadar iyo misk lagu sheegay kuwa iyagoo dhintay gudcorka maraya allah subxaanahu wa tacaala ay wujuuhdooda dhan nuur ka baxayo qisaskoodu aad buu badan yahay walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo ahlu qur'aan ahlullahi wa khaasatuh ya allah subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo meel kastaad joogtaan aynu isu dardaarano khayrka walaalayaal dhulkeenana wax kale kuma islaaxayo wuxuu ku islaaxayaa kitaabka allah subxaanahu wa tacaala meel kale intaynu ka raadinayno iyo un-ka iyo waxaas ma hayaan manhajkeenna aynu raacno waynu wanaagsanaanaynaa laanna ummaddan islaamka iyo muslimiintu goormay asaagood ka hadheen waa markay kitaabka allah subxaanahu wa tacaala ka lexdeen oo waxyaalihii uu amray ay khilaafeen markaasaynu hadhnay laakiin markaynu haysanay adduunka annagaa hogaaminaynay muslimiin baa hogaaminaysay wax kalena hadda kuma hogaamin karno ilaah idin barakeeyo asalaamu calaykum